asalkan ka beermay unugyada jirkaygiyo nafta laga aqaaday asaaskii nolosha asalkan ka beermay unugyada jirkaygiyo nafta laga aqaaday asaaskii nolosha dhammaan haweenka Soomaaliyeed ee maanta halkan isugu yimid u dabaaldega maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso xogayaha guud ee ururka haweenka qaranka gudoomiyaha ururka haweenka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee Hanad gudoomiyaha ururka haweenka Tawakal Maam Xaliima iyo gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta madaxa bannaan ee Soomaaliya Hindada Jaamac dhamaantiin martida kale bahda hirda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan maanta halkan isugu nimid u dabaaldega maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso waxaan marka ugu horeysa barnaamijkeena ku bilaabanaynaa khudbad mahadcelin ah oo halkan ay nooga soo jeedin doonto Luul Shariif oo ka socota hay'adda hirda soo dhawow Marwo Luul السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليه السلام عليكم ورحمة الله ما كسوق الجياش لا أخبر أنا وقت يوم ظهورا إنه هو من هالكان وعليه السلام وانا دي كجمع هالعلنا يا وحال كان نجوا مروي وين وشرفنا ونقل سوق الجل برنامج كان ساد أختي وبرنامج كي أورك هوينك الدونك الصوماليين يقيب قطع هوينك الدونك marka maxay ahayd barnaamijkan waa barnaamij aan sanad la ah oo aan sanad walbana isla wada qabana anaga ururka Sooba iyo ururka Tawakal maanta noo soo biiray marka waxaan jeclahay inaad sida qiimaha badan iyo sharafta badan oo noogu soo dhaweyseen inaad noogu dul qaadateen oo aad noogu timaadeen inaad idin kaga mahadceliyo ayaan jeclahay ururka hirdana wuxuu idin soo diray salaan uu meel walba idin kaga soo diray idin leeyahay dhammaan haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha ku noolaadaan barwaaqo يا قير إن شاء الله عندنا قبضها يعني أنا باللعبانية حفظنا وأنا فرنتها. هذه يوم هالسنة هي مرولول أو قبضي فرنتان كهيدي ما هاد علنت هالك إنه بس وجديسي وحان مركو هو رئيس برنامج كنا إنه فرد دونت أو قبوين كستوس إنه نوجو بلابي دونت حقيقة جود أورك هواين كقرن كمروة فاطمة آذن عصبلي سولوين تنو حقينا. marti sharafta qiimaha leh ee ka kala socda muxuu ahaa ii sheegay ururada qiimaha badan ee hirda Hanad iyo Sawfa iyo Tawakal waxaan halka idinku salaamay dhammaan ka soo qaybgalayaasha martida ah salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka dib runtii maanta barnaamijkan ka hadlayno ama wax maanta loo fadhiyo waa 8 Maarso 8 Maarso oo ognahay qiimaha ay u leedahay haweenweynaha adduunka iyo annagoo Soomaali hadaan nahay hooyooyinka ama haweenka Soomaaliyeed qiimaha iyo qaayaha ay noo leedahay maanta waa maalinteeni ma maalin yacni ku haboon in laga aamuso ama si oo qashuuca loo fadhiyo maanta waa maalinteeni farxadda waa ciideeni waa maalinta adduunka aan ku lahayn oo ka tilmaamneed oo lama ilaawaanka ah runtii haweenka Soomaaliyeed maadaama ay qayb ka yihiin adduunka haweenka adduunka ay qayb ka yihiin waxay la mid yihiin haweenka adduunka dabaaldega ay sameynayaan iyo damaashaadka ay sameynayaan ayay igana qayb ka yihiin inay sameeyaan mid kale maanta haddii laga sheekeeyo horumarka adduunka ee haweenku ka gaareen ma aha horumar la dhaylasan karo waxaan ognahay ummad walba horumartay waxay ka horumartay waa haween dal walba wuxuu ka horumaray haweenkiisa haween haddaysan jirin wax jiri karaa ma laha sababta waxaan ognahay ka soo bilow guriga oo bayska asaaska ah ilaa laga imaanayo meelaha ugu sarreysa oo madaxda ah iyo ururada bulshada dhexdoodaba intaas inay haween ay mar walba ay hoggaan u yihiin ama horseed u yihiin hawlaha socdo waxaan ognahay dhibaatooyinka dalkan ka dhacay 26 sano ee dhibaato dalkan uu ka taagnaa inay haweenku ahaayeen kuwa u taagan sida dhibaatadaas ay u baabi'in lahaayeen kuwa u taagan sida dalkan u dhismi lahaa maanta heerkan aan joogno quruxda badan ama aan isugu imaanayno kulamadan fiican ilaahay ka soka waxay ka ahaatay haweenka Soomaaliyeed oo naftooda
iyo maalkooda intaba u huray waxaad arkaysaa ururada hadeertaan oo hadda aan sheegayna hirdo iyo hanad iyo soofa iyo inta kaleba tawakal in ay haween horboodaan inay haween wadaan hooyo qiimaha ay leedahay qaayaha ay leedahay qof walba ogsoon yahay hooyo markay gurigii soo abaabisay ay gurigii soo dhistay ay carruurta soo barbaarisay ay hoyga kasoo toosisay xataa odaga siyaasiga ama madaxda ah ee ka qayb galaya kulamada muxuu qiimaha leh hooyaa soo diyaarisa haddaysan guriga kasoo diyaarinin ee asigoo maskaxdiisu degan tahay quruxdiisa iyo ay u dhan tahay aysan usoo labisin ee xalay la soo ballamin waxaa ma tegi karo fagaaraha mana ka hadli karo waxna ma noqon karo hoggaanna ma wadi karo hooyada qiimahaas leh oo qaayahaas leh waxaad arkaysaa maanta inaysan bulshada inta badan aysan ogeyn qiimaheeda gaar ahaan inaysan ogeyn ragga oo aan ognahay in uu dhibaatada dalkan 26 sano asiga uu horboodaaye waxa ku dhimanay dhibaatada ku dhacaysa ee hooyo ay tahay waxa ku dhimanay wiilkeeda uu yahay raggeeda uu yahay walaalkeeda uu yahay dhibaatada ay gaarayso asay qaaday ilmihii la carartay way korisay agoontay muxuu ay soo korisay haddana waxay u taagan tahay isla markaasna ma fariisanine dalka horumarkiisa ay u taagan tahay hooyo waxaan mahad gaar u celinayaa hirda oo isku dayday isku taxaluujisay inay barnaamijkan ay mar walba soo diyaariso ay muxuu ahaa ay diyaariso iyadoo la kaashanayso ururada hanad sofa iyo tawakal oo kusoo biiray hirda hadda waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin gabdhihiina sharafta leh qiimaha leh hor fadhiyana waxaan idin leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin halkan waxaan maanta u damaashaadaynaa maalintii maarso oo haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka adduunka oo dhanba ay ku midoobeen waxaan halkan uga mahad celinayaa oo hawshan isku soo dubariday hay'adeena hirda oo weligeedba na taageeraysay ururkeena hanad oo weligoodba isla lahaayeen gacan saar hirda kama daali karo wowdada halaya hirda haddaan sheega hambaal yaan u celinayaa haweenka adduunka ayaga hagaajiyeen haweenka Soomaali hambaal yay u wada direen ee hirda ma habsanto weliga ilmaana gelin horanti tanka beeranay haddana lagu hiraayay hoyga macalinka yo walama ilmaamaan horanti tanka beeranay haddana lagu hiraayay hoyga macalinka yo walama ilmaamaan horaadka noo dhigtee dusheedaan ku hurunaayo walama ilmaamaan hadaaqiyo tilmaantiyo hadalka barashadiisa tanka soo helnaayo walama ilmaamaan markay intaa habaysay hagaajisoy dhamaysay markay intaa habaysay hagaajisoy markiisa miyaysan ugu horeyn haweenka Soomaali markii dalkeena hooyo cadawgu soo hujuumay markii dalkeena hooyo cadawgu soo hujuumay nabadu heeda daawday dagaalka la isu aabtay miyaysan ugu horeyn haweenka Soomaaliyeed halganka jooji mayno jeeraan himila gaarno halganka jooji mayno jeeraan himila gaarno hambalyo sanadka 2016 dabaaldegii maalinta haweenka adduunka ee 8 maarso ayaan ku guda jirnaa markana waxaan u yeerayaa mid kamid ah gudoomiyaasha qabanqaabiyaasha xafladan maanta nagala soo qayb galay gudoomiyaha da'da yar ee ururka gabdhaha saxafiyiinta madaxa bannaan Hinda Daahir Jaamac waxaan leeyahay soo dhawow waa doorkaadii waa kaalintaadi waxaan ka rabnaa halkaad gabdhaha saxafiyiinta iyo hogaankooda geyn lahayd bismillaahi raxmaani raxiim aad ayaan u salaamayaa marti sharafta kasoo qayb gashay xafladan aadka u qiimaha badan leh ee aynu ku xuseyno maalinta 8 maarso sanadka 2016 waa maalin qaali ah oo haweenweynaha adduunku meel kastoo ay joogaanba ay u dabaaldegaan gaar ahaana haweenka Afrika ayaan hambalyo u dirayaa weliba haweenka geeska Afrika oo aynaga aynu ka mid nahay haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta hambalyo waa maalin aad u qaali ah runtii hooyaduna ma ahan wax ciyaara waa wax qaali ah
hooyo la-aanteedna adduunyadu halkan may soo gaadheen oo abwaanadii hore iyo dadkiiga waaweynaaye hore ee halkan ka hadlay way sheegeen. marka waxaan leeyahay hambalyo ururka hanad, hay-adda hirda, ururka aan ku hadlayo magaciisa aan gudoomiyaha ka ahay ee Somali Women Free Press Association, dhammaantiin kasoo qaybgalayaasha mar labaad ayaan idin salaamaya. kaalinta annaga haweenka saxaafadda haddii aanu ka mid nahay, kaalinta haweenka saxaafadda ku guda jira xusitaanka maanta waa midaan aada iyo aada ugu faraxsannahay. ururkeena Somali Women Free Press Association ama SOFO marka lasoo gaabiyo loo yaqaano, runtii waa urur ay leeyihiin gabdho saxafiyiin oo madax bannaan. waa urur inta badan ka shaqeeya arrimaha haweenka. kama shaqeyno oo keliya annaga saxaafadda aan baranay ama aan ka shaqeyno, laakiin waxaan ka shaqeynaa gabadh kasta oo Soomaaliyeed oo horumar u baahan, tu tabaalaysan, haddii ay tahay wacyigelin, intaba ururkeenu uu ka qayb qaataa. maantana aada iyo aad baan ugu faraxsannahay hay-adda hirda oo muddo aan la shaqeynaynay inaan sanad guuradii 3aad ee hooyooyinka adduunka loogu dabaaldegayay aan la xusno hanad iyo hirda. aada iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. dhammaan haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka adduunka meel kasta oo ay joogaan waxaan leenahay hambalyo munaasabada maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso awgeed. waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijkeena aan ugu dabaaldegayna maalinta haweenweynaha adduunka ee 8 Maarso sanadan 2016. khudbada xiritaankana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ururka haweenka ee Hanad, Maama Dahabo. soo dhawow. marwooyinka sharafta leh, gabdhaha iyaga Soomaaliyeed ee soo kacaya, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, maantay waxaan u gogol fadhinaa maalin qiimo leh oo aad iyo aad qiimo iyo qaayo u leh, oo ah maalintii haweenweynaha adduunka, kuwaas oo ay Soomaaliya haweenka Soomaaliyeed ay ka yihiin xubin muhiim ah. maasha allah, tabaaraka allah, waxaa halkaan isugu yimid gabdhihii Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan ururada iskaashaday, isbahaystay, isla soo halgamay, oo ay ka mid yihiin hirda, ururka hirda, hanad, SOFA iyo tawakal oo maantay nagu soo biirtay oo aan aad iyo aad ugu faraxsanay. runtii waxaa la yidhi iskaashata ma kufto, far keliyana fool ma dhaqdo. gabdhaha Soomaaliyeed ee iskaashaday ee u dabaaldegaya maantay maalinta qiimaha badan ee haweenka Soomaaliyeed waxa weeye kuwo har iyo habeen u taagnaa in ay horumariyaan dalkooda iyo dadkooda, in ay horumariyaan bulshadooda. waddan walbana wuxuu ku horumaraa oo heer ku gaaraa waa haweenkiisa. waddan aan haween lahayn horumar ma gaaro, maxaa yeelay hooyadu waa halbowlihii lafdhabartii dalka. qofku hadduusan lafdhabar lahayn ma socon karo. sidaa daraaddeed haweenka Soomaaliyeed maantay waxaa farxad weyn u ah ururadan isbahaystay in ay ugu dabaaldegaan maalintii haweenweynaha adduunka. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan haweenka adduunka meel walba oo ay joogaan, gaar ahaan haweenka islaamka, gaar ahaan haweenka Afrika, gaar ahaan haweenka geeska Afrika ee ay ugu horeeyaan haweenka Soomaaliyeed oo qiimaha badan. waxaan leeyahay hambalyo 8 Maarso waa isugu hambalyeynaynaa maantayna halku dhagayaga iyo arartayada iyo horumarkayaga waxa weeye waa haweenyo kor u qaadida awoodsiinta haweenka Soomaaliyeed. haweenka waxaa awood lagu siin karaa in laga horumariyo dhanka waxbarashada, in laga horumariyo shaqaaleynta, in laga horumariyo ka qaybgalka siyaasadda haweenka Soomaaliyeed. hadday haweenku siyaasadda ka qayb galaan oo ay ka qayb galaan waxbarashadii, oo ay ka qayb galaan shaqaalaysiintii, runtii waxaan isleeyahay Soomaaliya oo dhan, bulshadeeda oo dhan, dadkeeda oo dhan way horumarayaan. ilaahay taas ha nagu guuleeyo. dadaal weyn baan ugu jirnaa in aanu haweenkayaga Soomaaliyeed horumarino. maantana meeshii aan shalay joognay maanta ma joogno, alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
waxaa hortayda fadhiya gabdho yaryar oo da'yar oo aan jeclahay inay noqdaan kuwii annagana bedeli lahaa maadaama annagu aanu nahay da'dayadii ay hore u badatay oo aanu duqownay jiilkiina bedeli lahaa ayaa maanta garbahayaga taagan waana ku faraxsanahay in ay gabdhahaygii hor fadhiyaan waxaan leeyahay hooyooyin gaar ahaan ururka suxufiyiinta haweenka Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay hore u socda hana daalinina doorka aad maanta ku jirtaan waa door muhiim ah maanta waxbaad barateen jaamiciyiin baad wada tihiin wax walbaad ka qayb geli kartaan hawl walbaad haysaan wadankiina waad jeceshihiin haweenku wadankooda ma khayaanaan haweenku wadankooda ma hakradaan haweenku wadankooda waa u taagan yihiin 24 saac waxaan halkan aad iyo aad ugu faraxsanahay hirda oo ay mas'uulkeedii garabka ee haweenka ay ila taagan tahay marwo luul shariif oo aad iyo aad u karti badan jecelna inay gabdhaha Soomaaliyeed horumar gaaraan jecel inay hormariso dhammaan haweenka Soomaaliyeed mid walba oo maanta tiraahdo war waxaan soo galiyaa hirda iyo hanad inaan gacmo furan ku soo dhaweyno ayaan u taaganahay dhibsan mayna haweenka Soomaaliyeed garbahayagii weeyo waa kuwan ku faanaynay waxaan leeyahay in aan weel wax ku wada shubano aad baan ugu faraxsanahay haddii aan soo qaado mar walba waxaa la sheegaa boqolkiiba 30 aan aabba lahayn oo hooyo lahayn agoon waay waxaan u yeelaynaa aabe waxaan u yeelaynaa hooyo hadda waxaa la abuuray oo la isku dubariday haween boqolkiiba 30 u hiiliya oo aan harsan oo aan hooyan oo 25 haweena ah iyo 25 kale oo macnaha u qaabilsan qoraalada iyo maaragtay fidinta khabaaraadka gabdhahaasu waxay dhexda u xirteen in ay boqolkiiba 30 u noqdaan afka laga sheegaayo ay u noqdaan kuwii u hiilin lahaa waxaan u tagnay gudoomiyaha baarlamaanka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari waxaanu niri boqolkiiba 30 afka laga sheegaa waxaan rabnaa in qodob sharciya laga dhigo uu naga ballan qaaday wuxuu yiri ballan waxa igu ah inaan baarlamaanka aan qodobkaas sharci ka dhigayno uu naga ballan qaaday waan ka soo tagnay waxaan u nimid ra'iisul wasaarihii Soomaaliya mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke asaguna wuxuu naga ballan qaaday inuu qaadayo fariintayada oo 30 gabdhaha la siiyay uu geynayo baarlamaanka una hiilinayo garbihiisna istaagayo runtii haddaanan meel walba dubaha ku garaacin wax noo suura galaayo ma jiraan waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed oo hadaalinina dabuubtaan idin leeyahayna waa danteena guud dalagyadaan leenahay beeraheena dihin ciideenu waa dahab gacantiina uga daldala oo dadaal gala oo haweenku hadaalinina gabdhaha iyaga suxufiyiinta waxaan leeyahay waana warfaafintu fiicana ummadda u wanaagsanaa waana warfaafintu fiicana ummadda u wanaagsanaa wargeyskaa la akhristaa wejiga sawirku qabtaa waryamu wada jiro tv-gu haddana madadaala iyo fanaanintu murtibay ka waraabaya warfaafintu fiicana ummadda u wanaagsanaa وعنا warfaafintu fiicana ummadda u wanaagsanaa waad mahadsantihiin raxada adduunyada qofka oo ma weeye adduunyada qofka oo ma weeye hooyo iftiiniyo adiga ugaado haddan lagu abuureen hooyo aadamuhu ma jooge
hooyo iftiiniyo adiga ugu baado haddan lagu abuureen hooyo aadamuhu ma joogeen فردوسيو أنبياء الله جارنو